fogaanayaan. Ani waxaan rabaa kelimadayda inaan anigu ku qaato mowduuc yar la siiyay waqti yar oo kooban saaca cibaaduraxmaan. culumtu way isla xiriirtaa inaad cibaaduraxmaan tahay cilmigaad ka ogaa kartaa. bani aadamku waa cibaad, waa addoommo, waana addoommo alle. laakiin addoommo khaasa ayaa jira oo alle subxaanahu wa tacaala magaciisa u aaneeyey oo la yidhi cibaaduraxmaan. marka waa inaad isfiirisaa, anta min cibaadi raxmaan mase waxaa tahay cibaadu shaydaan, cibaadu shahawaat, cibaadun litaaquut. inta way jiraan. waxaad ka ogaa kartaa tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka ka bixiyey oo uu ku tilmaamay. tilmaamahaas iska fiiri, haddaad iska heshana alxamdu lilah, ilaahay ka mahad celiyo min cibaadi raxmaan aad ka mid noqoto. tilmaamahaasi alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay cibaaduraxmaanka haddaad naftaada u bandhigteed naftaada ka weydidna ogaaw min cibaadi shaydaan wa shahawaadaad noqotay. isi soo qabo oo isi soo celi intaad fursadda haysatid oo naftu kugu jirto. sifooyinka la sheegayo waxay u qaybsamaan laba sifay culimmadu u qaybiyaan marka qur-aanka la fiiriyo. sifo waxaa la yidhaahdaa sifatu taxalli, waa sifooyin qofka inuu isku qurxiyo laga rabo, waa kuwa badan. ataxalli bilfadaa'il, waxyaabaha wanaagsan iyo fadaaisha qofku inay ka muuqdaan oo isku qurxiyo. iyo sifo la yidhaahdo sifatu takhalli, sifo la rabo inaad ka maraatid oo lagaa waayo sifadaas, oo ah sifada gaalada iyo munaafiqiinta iyo dadka cusaada laga helo. sifadaasna waxaa lagaa rabaa inaad ka maraatid oo haddaad isku aragtidna aada iska sifaysid oo iska dhaqdid iska dahirtid. sidaas daraaddeed cibaaduraxmaanku waa addoommo ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa sharaf kuugu filan haddaad cibaaduraxmaan ka mid noqotay in alla subxaanahu wa tacaala magaciisa magacaaga loo tiiriyo cibaaduraxmaan lagu yidhi. tiirinta loo tiiriyo loo idaafeeyey raxmaan ayaaba sharaf dadkaa ugu filan. waxay ogaadeen inay addoommo yihiin, ilaahay inuu asagu abuurayo koonkan keenay, inaa rabbi markuu keenayena meeshaan inuu xikmad u keenay, aanan loo keenin cabath iyo cayaar adduunyadan aan loo keenin. adduunyada inay camiraan oo ay buuxiyaan inaan loo keenin. adduunyada inay ku tamatucaan oo raaxo iskaga raaxaystaan ay u joogaan iyo tumashana inaan loo keenin bay ogaadeen. bal alla subxaanahu wa tacaala inuu xikmad iyo u keenay ay fahmeen, markaabay raadiyeen wixii alla u keenay. rabbi subxaanahu wa tacaala asagoo qur-aanka ka hadlaya wuxuu yidhi oo ka hadlaya waxa koonkaan naloo keenay, wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu minhum an yadcumuun. insiga iyo jinniga ma aanan abuurin ilaa inay caabudaan keliya ayaan u abuuray. waxaa loo abuuray cibaadada rabbi subxaanahu wa tacaala. rabbi wuxuu leeyahay ka dooni maayo inay iquudiyaan, inay aniga iquudiyaan, bal naftooda inay quudiyaan xataa iyaga waxba kama saara. rabbi asaga abuuray, asagaana ballan qaaday oo raasiqa inuu quudkeena kafaalo qaado. marka dadkaa waxay ogaadeen inay yihiin addoommo ilaahay, allah abuuray, allah karaameeyey, allaha siiyey samci iyo bashar iyo caqli ay wax ku kala fahmaan siiyey. sidaas daraaddeed waxay garteen oo ay fahmeen wixii koonkan loo keenay, markaabay wixii loo keenana ay fuliyeen. ma noqonin cibaadun lishahawaat, ma noqonin cibaadun lishaydaan wa daaquut, ma aynan noqonin. labadaa waa kala duwan yihiin. cibaaduraxmaan iyo cibaadun lishahawaat washaydaan shataana maa baynahumaa. haddii aan fiirfiirisid naska aa fiirisid farqi weyn baa u dhaxeeya. dadka cibaaduraxmaanka waa kuwa dadka cibaadullaahi asaalixiin, waa addoommada ilaahay ee wanaagsan ee laga helay sifada tahaaratu lqalbi, qalbi nadiifa. qalbigooda wuxuu daahir ka yahay shirki, xaqdi, xasad, xumaan
waxa qalbiga galo dhan ee qalbiga rinjiyeeya wasaqeeya ee qalbiga madoobeeya ee raanka oo dhan qalbigoodu waa ka maraya waxay leeyihiin qalbi nadiif ah ilaahay ku xiran ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminsan nabi maxamed risaaladiisa aaminsan dadka muslimiintana jecel oo wanaagooda iyo khayrkooda jecel ayay qalbi wanaagsan leeyihiin marka waxay ku tilmaaman yihiin dahaaratul qalbi nadiifa waxay leeyihiin istiqaamatul lisaan carab toosan marka ay hadlayaan hadalkoodu waa wanaagsan yahay hadal toosan oo ilaahay raali gelinaya oo muslimiinta raali gelinaya oo hadalkoodu aan qalooc iyo ujaaj aan lahayn ayay ku hadlayaan sababtu waxay qaadan xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka rumaysan allah subhanahu wa ta'ala qofka rumaysan maalin aakhiro inay dhacayso ee rabbi la hortagayo haddii aad hadlaysid khayr ku hadal haddii aadan waxaad ku hadlay aynan khayr ahayn iska aamus oo buuggaaga ha ka buuxinin wax adiga dhib kuu keeni kara oo aakhiro dhib kugu noqonaya ha ka buux taabi aaminsan yihiin si aynan u shalaayin berri qiyaamo markay dhacdo oo saxiifadoodii iyo xaashidii malaa'ig baa nala socota oo waxaan ku hadlaynay waxaan samaynaysa qoraysa buuggooda ka buuxi maayaan wax maala yacniya ka buuxi maayaan dunuub fara badan waxay ka buuxinayaan wax adduun iyo aakhiraba anfacaya markii aakhire la tago dadku labay noqonayaan marka la soo hordhigo wixii laga qoray laba malaa'ig baa qofka la socota oo mid walba la yiraahdo raqiib iyo atiid midna xasanaadka iyo wanaagga qofku sameeyo qoraa midna xumaanta qofku ka hadlo qoraa buugaas baa lagu hor keenaya kaaba lagu leeyahay ku dhaqa maanta wixii laga qoro waa kuwan markaaba qofku uu leeyahay ma li hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha muxuu yahay kitaabkan wax yar iyo wax weyn wixii aan sameeyay wuxuu ka tagaba aanan jirin oo ay ku kooban yihiin oo waxba la halmaamin wajadu ma amilu hadira waxay helayaan waxay samay jireen meeshaan in xaadir ku yihiin rabbina ahad ma dulmiyo soo sheegay rabbi quraanka ku sheegay wala yadhlimu rabbuka ahada ahad la dulma ma jirto buugaan lagu qori maayo waxaadan samayn buugaan lagu qori maayo waxaadan dhihinin laakiin laga tagi ma hadana waxa dhahday waa lagu qoraya haday wanaag aheed wanaag baa lagu qoraya haday xumaan aheed xumaan baa lagu qoraya qofkii marka wanaag ka hela falyahmadillah naftiisa ilaahay ku mahadiyo qofkii buugiisa ka hela xumaantii oo asagu sameeysto hormarsadana fala yalumanna illa nafsa waxa naftiisa ahayn yowsan eedayn waxa naftaada ahayn ha eedayn rabbi kuma dulmin malaa'iktu ku dulmime waxaadan dhihi ku qorime xataa waxa la yiri qofku markuu xumaan sameeyo malaa'iktu hore kama qoraan waa la sugaa bal inuu ka soo laabto u kaadi bal inuu ka soo noqdo haduu soo laabadiido hal mar ayaa qaraf loo siina hadduu ka istighfaarto oo ka tooba keeno wixii xumaan ka dhacana looba qori maayo wanaaga uu sameeyana waxa ugu yar markuu sameeyo maragaas wanaaga hore ku qora waliba hal mar la qori maayo waxa ugu yar 10 illa 700 laab ila adhaaf kathiir la ya'lamuha illa Allah wanaaga malak qoraan saas u qora kana horeyna ka qori maayo oo waa lagu sugaa la'allahu an yarjic qofka oo yatuuba inuu ka soo laabto ka tooba keena laga yaabo hadduu soo noqon diido ayaa hal mar qaraf loogu siina bal ka war waa kala duwan yihiin marka cibaadu rahmaan marka waa dadkaas walaalayaal qalbigooduna nadiif ka yahay carabkooduna uu toosan yahay waa dadka saadiqiinta ah runta sheega fil qawli wal amal haday hadlayaan run bay ka hadlaan haday maaragta amal sameynayaan amalkooda run bay ka sheegayaan ma riya iyo sumca kama aha kaadibiin ma aha beenalayaal ma aha adoo cibaadu rahmaanka waxa lagu yaqaan inay dad saadiqiin yihiin qawlan wa amalan qalban wa qalaban inta rubay ka sheegayaan allahumma ij'alna minhum aamin wa kuwa iithaarka sameeya wa yuthiruna an-nas ala anfusihim dadka kale walaalahooda ayagoo baahi u hayso shaygii ay u baahnaayeen yaa waxa laga yaabaa gabadhan walaasheega iga daran ha qaadato
وكان ولالك يا باهنا يقدر حقها استعضوعون عضو يعب عضو قاضي عضو إمام ويؤثرون على أنفسهم والو أماني ولو كان بهم خصاصة نفتود باهي يدباتها هيسه إيثار بي سميان ويسعون في تقديم الخير وحي كشغيان خير كودتك الله هرمريو ودعاء خير ضدك خير كويران إمسا خير كويرته إمسا دعاء هكسو قادنا قبلها إمسا دعاء هاد خير كويرته waxa laga yaabaa gabdhaha dacwada qayb yar oo 10 qofood iyo wax ka yareen noqdaan hadii kulli ducaad noqol hayeen ka warrama masaajidkan meel la kala mara lama arka laakiin inta yas'auna ila alkhayr us'ata oo ducaatu khayrka ah oo dadka wanaaga ugu yeeraya oo meesha dhaxalka nabiga lagu qaybsanayo dadka ugu yeeraya oo madrasada dadka ugu yeeraya oo meesha khayrka lagu bixinayo sadaqaadka dadka ugu yeeraya waxa laga yaabaa inay yihiin in yar oo fara ku tiriso inta kale waxa laga yaabaa inta soo ajiibtaana inay yaraato ama dadka qaar ku dhibsadaan la wareed maalin walba miyaan tagi karna bil walba miyaan meesha xaadirka tagi karna taas waxa la ogaan doonaa marka la tago rabbi hortii la tago waad dhihi doontaa maxaan qofkaas warkiisa u aqbali waayay dadkii gabdhihii noo yeeri jiray kaalaya ka qayb galana dhihi jiray khayrka ka qayb qaata alla maxaan warkooda u aqbali jiray maxaan u daahi jiray maxaan u hakay jiray maxaan u daahi jiray waxaan macna lahayn maanta soo ogaa doontaa laakiin maanta wax ugu iska yar yihiin saadaradeed kulligeen waxa la rabaa inaan noqono dadka ka shaqeeya taqdiimul khayr dadka in khayrka loo qadimo dadka meelaha khayrka loogu yeero musaacadaadka iyo khayrka laga qayb qaato dadka loogu yeero waxa soo dhan qofka ku yeera ma ahan inuu adiga dan ka leeyahay inaad adiga wax u soo kordhinaysa ma ahan laakiin waxa lagu yeeraa maslahatu nafsik naftaada maslaxideedii haddaad khayr timaado oo meesha khayrka lagu hayo timaado oo aad wax dhageysato oo ilaahay kugu anfaco adiga ay bay khayr u tahay qofkaasna ajir buu ka helayaa adiga ba miisaankaaga lagu ku saarmaysaa haddaad imaan weyso oo wax ka faa'iideysana adiga baa buugaagi iyo xasanaadkaagi iyo akoonkaagi wax ka maqan yihiin qofkaasu wixii asaga ilaahay u qori lahaa iyo dadaalkiisii waa bixiyay maadaama uu ku yeeray dadka cibaadu rahmaanka ah waxay ka maran yihiin oo ay ka fogaadaan waxyaabaha arrimaha liita iyo meelaha xun oo dadka xum isugu tagaan ama dadka xum isugu yimaadaan way ka maran yihiin ama cibaadu shaydaan dadka adoomada shaydaanka u ah waxay ku sifaysan yihiin dhulmi isku diradira xaqdi xasad anaaniyo ana iriya annaga reehbel ay annagu reehbel ayaan dhahnay تكبر إيا كبر إيا إسلويني صفاء إلهي ليهي قساوة القلب قلبي قدهم قلالان وخيرك كقلالان وأنجل عنين ومركا لو عديه وآياتك إلهي القوانيه أين الدريمين عبسي إلهي أين الدريمين ذاتك أهل الإيمان كوحل ويغان عباد الرحمن مركا آياتها إلهي القدول أخريه وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا marka aayadaha ilaahay lagu dul aqriyo iimaan bay u kordhisaa wa ala rabbihim yatawakkaluun marka aayadaha ilaahay lagu dul aqriyo qalbigooda ayaa lusho oo gariira cabsi ayaa maaragtay ku beeranta wajilad qulubuhum qalbigooda cabsada takhsha'iru minhum juludul ladina yakhshawna rabbahum dadka rabbi ka cabsada qulubtooda jirkooda ayaa qabandhacooda marka aayadaha ilaahay lagu dul aqriyo markaad aragto inaadan ku saamoobeen wacdigu ku karaynin aayadaha ilaahay san ku karaynin xadiiska nabiga oo san ku karaynin waxaad ogaataa far inay kugu mudan tahay bal wax isku celi waa cibaadu shaydaankii bad u dhowdahay bal isqabo iswaxay wala la yaal cibaadu rahmaanku sifaad bay leeyihiin ilaahay laba meeloodba waa uga hadla soo quraanka ay ka buuxaan meelaha ugu badan oo ka heli kartaan suuratul mu'minuun billahi wada waad ka heli kartaan qad aflaha al mu'minuun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون إلى آخر الآيات آياتها سوى الله هذا وحويان
طليعة سورة المؤمنون سيدو كله خواتمتا سورة الفرقان والله هدلي سورة الفرقان أيضا دمات كذا والله هدلي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلى آخر الآيات وحربنا إن سورة المؤمنون كسو قدبه وأن سورة دان سورة ماركتي إن وحير آياته ذا كلق بيو قفل بنا وأنك مدنا وحنس ليهاي ويكف ليهين إلهي وعوت المنكبحيي وعباد الرحمن ضدك اللي يراد عباد الرحمن كصفة إليهين وحنا شيء رب سبحانه وتعالى إليهين الذين يمشون على الأرض هونا وضدك مركي سعونيان ونلك إلهي يكون سعونيان هونا حسلون أسعده مع أنه عوي وضد أهل التواضع ووقار حسلوني يدقنان نلك إلهي أسعده تواضع بيكون سعودان كبر ملهان إسلقاض ملهان إسقلقلوعين كما سعودان تاوى دوابا للنهي تواضع بيكون سعودان حق السعي يقول الذين يمشون على الأرض هونا حسلوني إيا الدقنان إيا وقار إيا كم مغنية مركز سعونيان تواضع با كم مغنية وصفة وهريدا إيه صفة عباد الرحمن إن يكون سعودان دولك أيقو تواضعية وأن وحوا يسكو كلفين سعود كود إسلدي بيني وما السعودان خيلاء حرقة كبري إسغلغلوعين مارت إسلوين كمان مغضو مركز مراي دولك إلهي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إن الدفك دمك كدوداي إن إسغلغلوعدو مرحا يا كبري يا حر شافيرتن كان مغضي تصفه ما أهان عباد الرحمن إلهي وحو إنك لن تغرق الأرض أدو دولك لغاها غلغلوعدو كما جيع كرت ولن تبلغ الجبال طولا بورهنا دركم غاري وحبا يسدار ديرين هذا كوبا كاستو دير قاد مركه تواضع واقصد في مشيك واغضل من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير مركو ويلكس لهذا لا حول يا صوتكاغا سيده دحاده وصع صوتكاغا عدكاغا هوس ودغ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صوتك اوحن والضميرها صوتكودا كله قصلدا خخون حدلada qeylada qurxooneen ka socdaas kala ku soconay marka dad adoon ilaahay tahay tawaaduca ka muuqdo man tawaada'a lillahi rafa'ahu Allah qofka ilaahay tawaadacana ilaahay koriyeela waman takabbara wada'ahu Allah qofka isweynaysiina ilaahay ba subhanahu wa ta'ala hoos u dhiga waxa laga rabaa marka cibaadu rahmaanka sifada lagu yaqaano socodkoodu inuu yahay socod miisaaman socod degan ay ka muuqato wanaag iyo khayr iyo haybo iyo waqaar oo ka muuqdo aan santaag lahayn xumaan dad aan lahayn isqaadqaad aan lahayn ayuu socodkoodu noqonaya sifada ku xigta وعباد الرحمن الذين يوصفون كلو يقان صفة التحلي إيه اللي قرب قفك إنه اسكو قرحيه تواضع قروحه والنقضة اسكو قرح تواضع قروحه وقفك وياهي عيب يشين معها قفك قروحه وياهي مركا يمشون على الأرض هوننا لقرب إنه سعود متك كوعك توحويان وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما حديدتك جهالة الله اللان أما هذا الحكم دهان قالوا سلاما سلام طارق ليلى وترفع عن سفاهيات كان لغا فغادو صفده لباد عباد الرحمن كليهين waxay mar walba ka kor noqdaan waxyaabaha doqonnimada doodaha muramada dadka xun wararka uga iimaanaya waxa soo dhan iskuma shideeyaan salaamu taarika ma ahan macnaheedu inaad ka cabsanayso ma ahan inaadan iska dhici karin laakiin maxaa ka iimaan kara qof liita
oo aqligiisu hooseeyo cilmigiisu hooseeyo war uu ku yiri inaadan uga jawaabin qaalu salaama inna tiraahya laga rabaa qaalu salaama qofkana taasa ku filan asaga bay ceeb ku tahay inuu wax ka sheego ama waxan ku yiraahdo adiguna aad ka aamustid aamus wixii wanaagsan baa lagu hadlaa wixuna waa la iska daayaa النضغ زين شاعرك وحوري النضغ زين وسكوت سلامة النضغ زين وسكوت سلامة هذا القفك وها الله قروح بقوياه وهدي قفك وسهل دقلاء وارتي قروح ما جرت هذا الكو وقروح والسكوت سلامة آمس كنا وأن بتقليو هذا ما أنت آمسته هذا حمان كآمسته هذا الوقر ما يسمعهم النضغ زين وسكوت سلامة فإذا نضغت فلا تكن مكثارا هذا هالليدي هذا الكهبدين عن خير كاهين ما إن ندمت على سكوتي مرة ولا قد ندمت على كلامي مرارا كلها هذا الكي ولي يحور كما نشا لاين ما حد هاللي قوبت اللي سوي يمت ولكن مرار بدن وايسير هذا اللي يمت ما سقى مسويش وحايا واحد كو هذا شوار ريكوردين وقرين buugga allana waa kugu qoran yihiin malaa'iktu diiwaanka kugu qoreen bani aadankuna waa ku keenayaan adduunka maalin baa lagu soo hordhigi marka ma in nadimtu ala sukuti maratan waligay kama shalaayino yiri hadal maxaa u hadli weeyday isma aan dhihin hadal idaafay laakiin walaqad nadimtu ala kalaami miraran waxaan ka shalaayay marar badan maxaa ka hadal siiyeen siraado waxa lagu yaqaano cibaadu rahmaanka waxa kamid ah sifada saddexaad oo rabo inay isku qurxiyaan تهجد قيام الليل يتهجد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكوها بانكي هيدو بريا ايغو رب سبحانه وتعالى اسجود سن مرنا اوتاغ رب سبحانه وتعالى وحيكون عن سنه عباده الهي رب سبحانه وتعالى يبيتون لربهم سجدا وقياما ما هني كو اسك جيفتا بانكي واغو بريا ماشي سيخدان ما ربي بي سجوسيين ربي بي أتاقيين ومحي انت ربي سبحانه وتعالى كربان وحي دمعيان وهم وجرات شنده إلهي ربي سبحانه وتعالى وحي كبغيان عقاب يعرى إلهي إنه كل عضنا وحي كبغيان كما كالسون ددكو كالسون ما ودوا عبادة ستا قرآن كالصوبر تاو أعمال باطل بستا اسكسي حابين كبري مايان وقت ددك ودن أي هردايان وقال سوجدا إلا دد أهل خير وخير كسوجدا أيوة كلام ما هني أنا وح سوجدا أين نجرين أو رب سبحانه وتعالى أو سماء الدنيا أسودجو أو رب أوليها ورياء الدم بداف ويدي سنة وأنا دم بدافع ورياء بو حقبا دم بجو دافع ورياء باهي قبون باهدي سمارة أنجدا أو رب إليها مركب أوجهين مركب إليك فايدي سنة ومركب إلهي قعنتي ستاجنتهاي أولي يا وحي ورسنا يا وحربه هذا يكون أفتك ورن أما حمانا تكسر جده وحن إلهي رالي كاهين تبضنا كسر جده فيسبوك عوض ودن إيه وحن مالا يعني وحن ربيهين بضها بحور تاس ما أنت سجد حجرة كواس دو عبيه لما يدم بيوم بالوقري إن بدنا هرد وتجي وقتي كوانا وكوا إلهي تلمامي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لنعيدود waxay ka fogaanayaan عن المضاجع فراشكي قبله يمشي اللي جيف جري نعم كاي ka fogaanayaan يدعون ربهم ربي ayay baryayaan يعبدayaan خوفا وطمعا عبسي ay ka cabsayaan cadaabkiisa iyo wadamacan hunguri wajira jannada ilaahay inay helaan waa dadka lagu tilmaamay waa kuwaas cibaadu raxmaanku ya قليلا من الليل ما يهجعون إلى الله سبحانه وتعالى إن يرأوا هبينك كمية أي هردان وقفكم في صبابي ما يدو هردو حالي إلى المقت دادك دبقى يا حاجة العافمات كالله هردو الآن هبينك وحي كانتا إنه قفكم بابه وحل أقادوا التجارة لقى قاضي قفك هدو هبينك هو صلاة الليل أساقعوا هبينك قرن سوجيد لقوا مدهن هدو أساقعوا صباح دي بوجه كيسا نور كيسا لقى قرطا صباح دي وجه كيسا نور كيسا لقى قرطا marka qaliilan min al-layl ma yahja'un in yar oo aad u yar oo habeenkii kamid ay hurdaan inna nashi'at al-layl hiya ashad wad'an wa aqwam qila ibadada habeenkiya wax gaar lama arko salaada habeenkii la dukada sunnata mid maanta waa ka fadhi badanta taasay og yihiin marka
markaabay habeenkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u soo jeedaan dartiis ay ilaahay u caabudaan oo ilaahay u baryayaan addoommo ilaahay wan markaasaa la yidhi cibaaduraxmaan duco iyo baryo ayay ku soo jeedaan habeenkooda dadkaas wanaagsanaa adqiyada habeenkooda waxay ku dhammaystiraan salaad muxaasabatu nafsi naftooda ay xisaabiyaan maanta xaa kaa dhacay maanta maxaad akhriday qur'aan maanta imise gooraad istikfaaratay meeqa gooraad nabiga ku salliday sala allahu alayh wasalam imise goor baad subxaana allahi tiri imise gooraad astakfirullah tiri imise goor muxaasabatu nafsi bay ku jiraan maanta o dhan muraaqabatullahi fii acmaalihim waxay muraaqabaynayaan mar walba ay dhowrayaan acmaashoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala tadaruc bay ku jiraan ilaahay u tadarucayaan in ilaahay ka dhowro cidaabkiisa inuu ka ilaaliyo cabsi ay ka qabaan naar ilaahay ay ka baqayaan sifooyinka kale ay leeyihiin cibaaduraxmaan waxaa ka mid a alictidaal fi linfaaq ictidaal bay sameeyaan markay wax bixinayaan nafaqada ay dhiibayaan iyo sadaqada ay dhiibayaan waa dad muctadiliina sifada ay leeyihiin waxa waaye cibaaduraxmaanku inay muctadiliin yihiin oo ilaahay ku tilmaamay oo ilaahay ku tallaalay tadbiiqidantooda mujtamaca ay ku dhex sugan yihiin inay tawaasun iyo cadaalad inay sameeyaan bayna afraadi almujtamac markay wax bixinayaanna cadaaladay ku samaynayaan israaf samayn maayaan oo xadguduba allah wuxuu yidhi walaa tabsudhaa kula albast haddaad gacantaada wax bixinaysid wax oo dhan ha bixin wafataqcuda maluuman maxsuura kula albast laguma dhihin wax oo dhan bix buqalana ma ahanoo walaa tajcal yaddaka maqluulatan ilaa cunuqika alla yidhi subxaana wa tacaala gacantaadu mid xiran oo waxba bixinaysan noqoni wax bixi adduunyada markaad joogto waxaad hormarsataad leedahay adduunka waxaad la baxda ayaad leedahay maalkaagu waa waxa adduunka aad joogto waxa aad cunto waxa aad labisato iyo waxa aad meel wanaagsan kula baxdo ayuu maalkaagu yahay adduunyada maalkaagu ma ahan waxa aad akoonka ku shubto waxa aad warasada uga tagto maalkaaga dad kale ay qadanayaan ma ahan sidaa daraaddeed waxaa lagaa rabaa haddana waxa lagu yidhaahdo inaad samaysid ictidaal inaad samaysid oo aadan waxaagii oo dhanna hal mar ku tumanin aadan dhiibinin inaadan wixii oo dhanna wada haysanin waxna inaad la hartid waxna sadaqaysatid waa sifooyinka cibaaduraxmaanka lagu yaqaano waxna way la baxaan waxna way haystaan oo naftooda iyo dadka nafaqadooda ku waajibtay ayay sameeyaan aladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama waa markay wax bixinayaan kuwa aan xadgudub samaynin israaf maaha gurigaanu saa noocaana ha lay dhiso noocaan dhig alaabta qalabkaana ha la keeno saan ha noqdo dharka noocaana soo gado midba midkaa aragtid kana ka qurux badan kan ii soo gad kan keen maado ma ahan cibaaduraxmaanku saas walam yaqturuu guud ciriirinna ma sameeyaanoo dadka nafaqadooda ku waajibtay cuntada kuma dhibaan yaa ku dhahay wax yiriisoo dadka nafta u celiyo saduramaqa siira asagoo ilaahay u nimceeyey oo wax fiican ku noolaadaan si fiican u noolaadaan sii kara ayuusan si fiican u biilin waxna waa haystaa ilaah siiyey markaasay wadaadu iyo ilmuhu qeyliyayaan say u yaadaan haddaad aragtid aad maarata ka yaxyaxo is leedahay war dadkaanu guri muslim kamaba soo kaco miyaa dhibaatada haysata odagii iyo waxa uu haya haddii la fiirin xoolal aan kama jirto laakiin waa sifo ilaahay dadka siiyo qofku iskama keeni karo marka ilaahay hanagu daro marka israafna ma sameeyaan ikhtiyaarna ma sameeyaan ee waxay sameeyaan wanaagay sameeyaan inta u dhexdhexeeya ayay sameeyaan waxa ilaahay raalli ka yahna taas weeye maalka waxa loo helo loo sameeyey in masaalixda ijtimaaciga lagu sameeyo marka in lagu dheelo lama rabo waxa sifada ilayhi kamida tawxiidullaahi caza wajal sifooyinkii takhalliga ay ka mid tahay ilaahay bay waxidayaan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون توحيد الله عباد الرحمن وضدك إلهي وحده وحدانية إلهي قرن إلهي عبادي سأن شرك لو ولا جنين أو كفوا هذه لا يدعون مع الله إلها آخر
إلهي لجركيس إله كلام عابدان شركه ما أنت ونوع بديه شركة عادي هو قال هذا عضيسته هلك الله تكتي وابا يجو وركض وعاديها بنانكو وياه إلهي شركة إنه دين كود واد ديدين شركة عملية جرا وقفك وسنسكور ورغبين هذا إلهي بريه وحلو ذا جسم هذا جور إلهي وحنا وحو جور عدو وحن إلهي إنه واحتريان هذا وقعتده بريديد بريد وشرك وحل جاي أبا إن العبادة سنة يصير شركنا أتكون دعوة دي عبادة دينا وحبا كتير الله وحكور القرآن كرب سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك هذا إلهي الشرك ياشو عمل كاغا دوا بري وحبا كما جيران محد إلهي شرك وسمن وهو الذي خلقك أسوى الله كو أبورا كونك كو كيني أسوى كليه مدك كو إرساغه أسوى مركز جرته الله كو عافية أسوى كليه كو دلايا الله كليه كو سون نولينايا الله كليه محكمديس أتغي سيدا سواء الله كليه الضم عيس إنه جنديس كو جيا سواء كاد كم من جليس عذاب كليه سنة سوي هاي محا كلفة إن الوحكلة هي قرافة هي شركة كده ورقت إن محا دعي إن الشرك لظلم عظيم شركه وظلم وين الله يسكا إلى شركنا مفضوض وظلم وين سيدا درادت عمل كاغو دون بربريه إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك إلهي ذنوب تكلم وضاف لكن الله شريك يلا ما ضاف إن الله لا يغفر أن يشرك إن شرك الله يا إلهي ما ضافه وأضاف مشرك هداد يكتب لغو ضاف مايو لكن ذنوب تكلم هداد قشيد إلهي وكو ضاف هداد صلابتي وإلهي وطوبة كنت قفكوا دونون إلهي ضافه سيادة درادت حديث قوس إلهي وعكوليه هاي أنقو أغنى الشركاء يا نحي كان كد يغطون شركاء عبادة دي إن الشرك اللي يسميه وكد يغطونه قفكي الشرك إيه له أساقا يا شرك يستوى وانك تغيى تركته هو شرك وح الله قصوا قال ملي وح لو غرام ملي إلهي مركه هنقبت بهذه الناس كايلا لأنه شركه وكدوي هو النبي صلى الله عليه وسلم من شراك النعلي قفت الصول جلس كقبته وقلني وكدوي أعماش اللي قالوا وافضوده مركا كفير سو عرب كاغا فيري فعل كاغا فيري واحد سمينيسو وحين أبضنت هاي إن واحد صنكوا وكرتا سيدي شيخ كهالله إن العلم يالته برتد واحد لو قالوا بيساد علم ويالته واحد لو قالوا بينساد أوجاته وإن علم اللولي هو لبرتا ميزانك واحد لو كلا ساعة أو لو كلا صار هو علمك هذا العلم جرين شركي هي شرك الآن مدنا ما بكلا برانيش إلهي نود له توحيدك إلهي نود له شركي كان إلهي نجبت بهذه مركب حنا لجرب أول ليال إن عندك نغنى إلهي سبحانه وتعالى وحكم ذا لا يدعون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق مد لا نف إلهي مجوين أيام إلهي أو حرمي إلا الدلو نف إلهي حرمي إلا الدلو مجويان نفت كما قادان نفت إلهي حرمي روح نفتي سئنا أدو جويدو لما أقوله إله ما كان سبكول كان إله ما وقت يقول من يسوق أذيها كان نبضقش إلا إن حق له الدين يمويان والنبي صلى الله عليه وسلم حديثها ما بنانا قف مسلمة مؤمن نفتيس إلا جويو إلا بإحدى ثلاثة محكم ذها قف دله قصاص بالله دله قفك زانق المحسن نقضه وأنت جور حلال صامر نين أم هالنقضة منك هالنقضة جور حلال صامر هدنا جوجل داف سمايا أسجنا ولا دله حد بالله دله تارك الصلاة بعد أمر الإمام مرك إمامك أمره هدود كدي الصلاة دي ظهر كي انت الله أمره عصر كي قالوا ولا دله أسجنا سد حدث وحنا هنا هلا دله اللي يرمي أجر حق بالله دله كويس حدود اللي جاوا فينا لكن ضد كلا أبرياء برية إلا يسكلايو إلهي وحرمي قفك مؤمن كا نفتيسة قفك مؤمن كا نفتيسة نبي وحي صلى الله عليه وسلم قف مؤمن النفتيسة إن لقويو الله جرو لزوال الدنيا عند الله أعظم من قتل النفس المؤمنة
naf mu'mina in la gooyo adduunyadu inay zuusho ayaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ka jecel yahay adduunyada dhan inay baaba'do imise oo naf oo mu'mina ayaa maalin walba xaq darro lagu dilay adduunka can you imagine wax la koobi kara maahan taana waa sifooyinka la rabo inuu qof ka maqnaado shirkiga inaad iska ilaalisid oo takhalli ka samaysid naf mu'mina inaadan dilin oo aadan dhibinin inaad naftaada ka ilaalisid dilkeeda inaad adigu dishid inaad ku faraxdid inaad ka qayb qaadatid adoo dilay la mid tahay nabigu wuxuu yidhi kaliya xataa haddaad u ishaarto qofkaan dil tiraa saddex kelimay ka koobantaha uqtul dil waa saddex ficilkaas u kaliya haddaad tiraa adoo sheer bad kula tahay dad badana waxa laga yaabaa annaga inaan dadkaan hadda dad dilin laakiin dad laynaya oo xaqdarro ummadda ku laynaya inuu taageersan yahay ama xoolo ku taageero ama ficil ku taageero ama qowl ku taageero halla laayo uu yidhaahdo ama uu ku farxo dembigana sheeraad kula tahay adoo ka fog adoon waxba geysan midda saddexaad ee la rabo in laga maraado waxa weeyaan azina walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yaznuuna u rabbi subxaana wa tacaala cibaaduraxmaanku gogol dhaaf ma sameeyaan rag iyo dumar waxay ahaadaanba cibaaduraxmaan gogol dhaaf ma sameeyaan waa ka fog yihiin zino waxaa laga cabiraa kabaa'irta dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ayay ku jirtaa waxay leedahay aathaar xum oo salbiyaada ayaa ka dhalata mujtamaca ayaa fasaada naftii daahirkeed ayaa xumaata waddamada ay ku badan tahay marka waa waxa lagu garto haddaad bani aadamka waxaa lagu abuuray hariiza shahawaad rag iyo dumarba waxaa ilaahay u ogolaada marka naftaadu markay damac samayso inaad guur gashid si aad uga fogaatid ficilada xun iyo wixii keeni kara inaad uga dheeraato maanta arrintaas halisaa loogu jiraa gaar ahaan markay waddamadan oo kale oo waddankeenna markii la joogay dal muslim oo dadkuna muslima 90% haddii xumaanu dhacaydana dad isqarsadaa iyo meel xun lagu sameeyay ahayd laakiin waddan ay iska tahay fasax ay tahay marka la joogo waxaa looga badbaadi karaa oon kaliya inuu qofku markuu gaaro hadduu helo qof uu naftiisa la sheergay karo inuu guursado si uu iskaga ilaaliyo waxa xun dhaqankaa xun oo loogu dhicin sifaaxul jaahiliya saan loogu dhicin zina zoonso qofku ugu dhicin in la guursado oo dhallinyarada weliba shahwadoodu xoogga badan tahay guur loo yeelo rag iyo dumarba loo sameeyo saasaa loogu badbaadi karaa haddii kale halistu way fara badan tahay maantana waxaa laga soo buuxshay oo la wada haystaa moobeelo cabral internet wax walba adduunka maanta looga fiirinayo waxaa laga yaabaa qofkii ilmihii inaad leedahay ilmo wanaagsan ku yihiin wax kuu baranay meel kugu jiraan waxaanayna dhexda uga jiraanoo maantoo dhan iyo caawo dhan lagu mashquulsan yahay ama la fiirsanaya ma qiyaasi kartid marka meel la jiro marka ilaahay baan weydiisanaynaa inuu na xifdiyo nafteenna iyo carruurteenna iyo durriyadeenna iyo sawjaadkeenna iyo dhammaan inta muslimiintaba inuu ficilada xun ka ilaaliyo annaga naga waardiyeeyo haddaba walaalayaal arrintaa way badan tahay waxyaabaha keeni kara marka in laga fogaado oo muqadamaadka xataa u ah oo nadaraadka iyo fiirinta maxaarimta la eegsada ay ka mid tahay ikhtilaadka isdhexgalka ay ka mid tahay waxyaabaha noocaas oo kale ah in laga fogaado allah wuxuu yidhi waman yafcal daalika saddexdan waa la soo dhexgeliyey qofkii sameeya yalqa athaaman dembi baa la kulmaya yudaacaf lahu alcadaab cadaabkaa loo laablaabaya dadka maaragtay shirkiga sameeya dadka maaragtay dadka dila nafta ilaahay xaram in la dilo dilka u sameeya dadka gogol dhaafka sameeya waman yafcal daalika yalqa athaaman dembi buu la kulmaya yudaacaf lahu alcadaab cadaabka ayaa loo laablaabaya wayaklud fiihi muhaana cadaabka ilaahay buu ku waaraya weliba isagoo ihaanaysan oo dullaysan ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa dadka ilaa tooba keena mooyaane oo camalkii xumay ka soo laabta oo camal wanaagsan sameeya oo kuwaas ilaahay baa ka tooba aqbalaya xumaantoodii ilaahay wanaag buu uga bedelayaa fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaada ilahay wanaag ugu bedelayaa qofkii xumaantu markay ka dhacdo waxaa inuu ilaahay garto inuu ka tooba keeno inuu ka qoomameeyo inuu go'aansado inuusan u laabanayn waxaas ilaahay xumaantii waa kaa tirtiri ilaahay wanaagu kugu bedeli shirkiga ilaahay waa kaa dhaafi macsidaad gasho waa kaa cafin waddada fiican ilaahay waa kuu hagaya waxaa la og yahay
dadka cibaaduraxmaanka ah waxay ka fogaadaan dulmiga iyo beenta calaamada lagu yaqaan waxa weeyaan ma sameeyaan dulmi ma sameeyaan dadka ilaahay ma dulmiyaan qowlu zuur ma sameeyaan walladina la yajaduna zuura wa idha marru bil lagwi marru kiraman been isaga marqaati kacaan dadka been kama sheegaan hadday soo maraan meelaha xumaanta lagu haayo fadhi ku dirirka qiila waqaalada meelaha looga hadlayana marru kiraman maraan iyagu xaqooda ma eegaan والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذه آيات إلهي لغو عديو أو لغو وانينا لم يخروا عليها صما وعميانا كما دول دعان آياتها إلهي أيغو إندلا وحي كو دغيسان أو كو مغلان دغو وناكسان أو حفدية إندو وناكسان أو حق أركا أي كو مغلان لغويغا إيو حمانتا إيو فدكو ديركا إيو حانتا إيو وحا كجيستان آياتها إلهي هدي لغو وانيو آياتها إلهي وي أقبلان وي مغلان وي دغيستان سيدا درادت وادت أك إن الدنيا مالما إتهاي أو مالما لمرايا أين نهين ميل واريو ميل ولي اللي اسك جوغا أين نهين أي أوجهين إلهي waxa weydiisanayna inuu Ilaahay naga mid dhigo cibaadu raxmaanka annagana waxana laga rabaa inaan isku darno oo isbaarno oo aayadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay mannahay makamidnahay aayadaha mana tilmaameen alladina yamshuna ala al-ardi hawnan mannahay وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مدهنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما منهي هبينك ددك إلهي أدو كذا ما كجرنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلهي كوبر يمنا إلى عذاب كاجا نقلح إلى عذاب كجهنم هنجين عذاب كجهنم ددك عصاد يا قال هذا ومثل الزبيك وده منه إلهي بريا كو أن سمينين إسراف إيه التغيير أن سمين مكجرنا والذين لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما مكجرتا هذا ميزان إيش صار آيات اسكو دول آخريو ميزان كمال اسكفير وهو حير قرآن كمرك الآخرين يوحى الربا إلا قلت تدبره معنيه سلفهمه لا روحه أديغان آدي صارت ميزان مكجرتا مكو حيسان تهاي maxaad uga dhaqantaa xageebad uga jirtaa meesha in istiraal laga rabo ma ahan inaad ma aragtay quraanka aad iska akhrisid kaliya inaad ayadaha dul martid hala lab iska sii waa dhameeyay quraanka macnuhu ma aha quraankan wuxuu nafarayaa waxbuu noo sheegayaa waxbuu naga reebayaa qisooyin buu noo sheegayaa wax dhacay buu noo sheegay hadda ka hor ummado hore ku dhacay hadda waxa la joogo naga warsiin waxa soo socda ayuu naga warbixinayaa aakhira waxa jiro sheegayaa waxaas oo dhan waa nal hadlayaa macluumaad adoo haysta ayaad joogto aad haysata marka uma baahnid meel kale inaad ka raadis waana nagu filan yahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa rabbi subhanahu wa ta'ala inuu naga mid dhigo cibaadu raxmaan inuu ilaahay naga mid dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu san nagu darin cibaadu shaydaan wa shahawaat shaydaan halkaabo fadhiya adoomadiisii uu rabaa inuu noqdo shaydaan dadoo rabaa wadada xaqaa uu taagan yahay cibaadu raxmaan dadku inay noqdaan ma rabo عباده الربا ضد أسجى قرب يا الرفيق وهو النار تلقى الربا صراط المستقيم كو تاجيه لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هل كاسوا فديا على ودي أبونا آدم مركو جنة النار تكسر صار أو نوقع هذا ولي تاجيه من أيه مركا iska fiiri la dagaalan cibaadu raxmaanku waa la dagaalameen waa iska fogeeyeen way ogaadeen horay iyo gadaal iyo kor iyo hoos cibaadada ilaahay bay isku waardiyeeyeen kitaabka ilaahay bay isku waardiyeeyeen sunnada nabiga isku waardiyeeyeen shaydaan iyo dadkiisa iyo sunnadiisana way iska ilaaliyeen ilaahay waxaan weydiisanaynaa annagu xoog badan uma lihiin in ilaahay naga waardiyeeyo annaguna aan dadaal bixino جزاكم الله خيرا بحسن استماعكم وحي أن صحنا إلهي بمهد كله وحي أن كقل دمنا نفس الشيطان كهذا إلهي يعفيه إذن كان وذي كعور دارنا